mid ka mid ah ismada idoor ama hooyadan dhadiga ah ee dhashay shabaab oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu cadeeyay qodobo dhowr ah hadaladiisina waxa kamid ahaa duulaanka ay ku soo qaadeen magaalada Laascaanood maalinka ay ismada dhulbahante go'aankooda iyo masiirkooda ay ku dhawaaqi lahaayeen in uu ahaa in ay halka garaadada ku dilaan balse ay u suuroobi weeday iyaguna ay ku jabeen saadaraadid ayuu hadalkiisa wuxuu sii raacinayaa dhulbahantow haddaanu idinka adkaan lahayn ama ismadiina laan lahayn waanu idin qaban lahayn balse maanta naga roonaada maadaama aad naga awood roonaateen qarankii aan dhoodhoobaynayna awooddiisii aadna tusiseen nabadda aanu wada qaadano hadalku intaa kuma eka waxa uu kale ula hadlayaa nimankii hawiye ee lahaa irir Soomaalaanu nahay kanaanu nahay isaaqanaga nala dhasheen waa walaaladayadu waa u hiilinaya marba 10 oday muqdisho inta ka soo dhafaan Hargeysa imanayay ayaa xaqiiqada dhabta ah loo sheegay isagoo leh kun ugaas oo irir Soomaala ah oo maanta garoonka Hargeysa ka soo dega waxa inooga faa'iido badan laba isin oo dhulbahanta ah hadalku inta ku Muuse soo joojin isagoo haddana Muuse la hadlaya ayuu waxa uu ku yiri Muusow laba isku kay qabadsii inaad dhulbahanta tiraado dagaalka joojiya adiguna aad gabilay iyo Hargeysa iyo Buraayo inta saa ugu wareegto aad shacabka kiciso aad tiraado qarankiina difaaca ciidankii baabaaye aad macawisleeda soo kiciso labada isku kay qabadsii barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dhinaca kale barnaamijka waxa ku soo qaadan doonaa wiilka yar ee ku magacaaban ra'iisul wasaare ku-xigeenka ee la yiraahdo Saalax Axmed Jaamac aflagaadadii uu geystay ismada dhulbahante iyo beentii uu ka sheegay maxay ka tiri dawladda federaalka ah Soomaaliya muxuuse ka yiri ra'iisul wasaare Xamse muxuuse ka yiri Xasan Sheekh barnaamijka ayaad ku maqli doontaan magacaygu waa Hilaacsool channelkuna waa isla Hilaacsool si aad barnaamijyadeedu la socoto fadlan channelka subscribe dhaho isla markaana like ta saaro oo gambaleelka u furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada barnaamijyada aan soo gudbiyo waxaana idin soo gudbiyaa waxyaabo sugan oo isla markaana xaqiiqda ku qoto السلام الله عليكم ورحمة الله إذلكين رمضان كريم ملك الدنيا دافئ إذا كجوكتان ولكن الله الصلاة إذ الله سيدي هراء يعلو العذاب ومع النمط معاه كنا بيغان تضبط بش أفراد لبدا كنا يصدح إلى بعتك إسي كم إذا اسمها وضيع الرقمية ده كسوجي ده beesha idoor ayaa maanta runtii hadlay warbaahintana ama saxaafadana warbixin siiyay qodobo dhowr ahna ka hadlay balse aan ku horeeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya waa ninka lagu magacaabo Saalax Axmed Jaamac saad ogtiinba waxa uu aflagaado u geystay ismada dhulbahante isaga oo ku tilmaamay dhibaatada maanta ka socota gobolka Sool ama magaalada Laascaanood inay iyagu bilaabeen inay iyagu ka dambeeyeen fidmo dhanna in ay iyagu wadaan saanu wada ogsoonahayna Saalax waa nin ka soo jeeda beeshan idoor ama hooyadan dhadiga ah ee dhashay shabaab inkastoo daaroodku reer abti ay u yihiin haddaba aflagaadadii intaa leekeed oo ismada dhulbahante sharafta iyo ciziga karaamada laha uu geystay ra'iisul wasaare Xamse muxuu ka yiri Xasan Sheekh Maxamuud muxuu ka yiri Xasan Sheekh Maxamuud muxuu arinka ka yiri orda Xasan Sheekh Maxamuud waxa leeyahay waa barasaabka Soomaaliya
waayo wuxuu waaba nin isaga dhanba jeeb wuxuu ku jiraa jeebka Ismaaciil Farafar Ismaaciil Cumar Geelle ayuu ku jiraa nin maanta tala bixin karana ma aha nin go'aan qaadan karana ma aha balse waan ognahay dawladda federaalka waxay ku dhisan tahay 4.5 ayay ku dhisan tahay Xamso mid baan ku leeyahay kursigan ogaadeen ugu ma fadhidid ee daarood baa ugu fadhidaa 4.5 na waad ku fadhidaa ma waxa nagaga filaan weeyday wax kale iska daaye ku-xigeenkaaga oo waliba ka hooseeya jawaabtu ka mudan yahay inaad siiso war ma taasal Xamso awood u yeelan weeyday adoo kursiga daarood ku matala 4.5 na ku fadhiya wax kale ba iska daaye war ma intaas awood u yeelan weeyday ilaa baan kugu dhaariyay horaa loo yiri raggu ya muuqiya magaxa waa ay ka siman yihiin laakiin waxtarka ayay isdheer yihiin Xamso meesha ka kacayaan ku leeyahay aan u gudbo isankii hadlay ee ka soo jeeday beesha Iidoor isinkaasi wuxuu sheegay ujeedkii maalinkii isimada dhulbahante ay ku dhawaaqi lahaayeen ama ay ku dhawaaqayeenba go'aankii ay soo saareen ee ay ka tashigooda ahaa duulaankii aroornimadii lagu soo qaaday in uu ahaa in garaadada halkaa lagu laayo oo siduu afkiisa ka leeyahay waxaa kaloo uu sii raacinayaa haddaanu idin baabiin lahayn gacantaanu idinku qaban lahayn balse hadda waad naga awood roonaateen waxaanu nahayna waadna tusteen ee dhulbahantow naga roonaada dhulbahantow hee naga roonaada bal in yar ila yara dhegaysta horta bilowdeen haddii aanu cagta idin marino maanta waxba qiimo nalama idan lahaateen laakiin maanta waad nala culustiin haddaba tolka colka jooja iduguna raganimo qaato runtii waa caqliga Iidoor wuxuu ku leeyahay maalinkii u horeysay haddaanu cagta idin marin lahayn waanu idin talin lahayn waxyaabo noocaas ku hadlaya balse maanta nabadda qaata balse hee maanta nabadda qaata bal caqligooda waxa uu tusay nin shalay ku leynayay maatada duqeynayay oo maanta ku leh gacan saaxiibtin maan isku dhiibno aanu wada hadalno haddaba adeer waxaasi wax kaa soconaya horta ma aha daraawiish baana la dhahaa daraawiish baana la dhahaa walaa federaal baanu u baahnayn annagaa dawlad socotaa dawladdana nimankii keenay baanu nahay nimankii waxaanu nahay adoo lagu raranayo rarka kaa rogay weliba saasay tahay qarankaa aad lahaydeen waa qaran maanta waxaa awoodiisii wiiqay wuxuu yahayna caalamka tusay waa dhulbahante oo aan weliba dhammayn taa ku biyacab qodobkiisa xiga wuxuu soo qaatay isaga oo yasaya hawiye waxay yihiinna sheegaya fariinna u sii marinaya hawada wuxuu yidhi maanta kun ugaas oo irir Samaara ah hadday garoonka magaalada Hargeysa nooga soo degaan waxaa nooga faa'iido badan haddaanu Iidoor nahay laba isin oo dhulbahanta ah laba isin oo dhulbahanta ah war meeye hawiilaha irir Samaalaanu nahay meeye hawiilaha Iidoor baanu wada dhalanay meeye waad aragtaan caqliga Iidoor waad aragtaan Iidoor inuu danaysto kaliya uu yahay oo dantiisa kaliya yaqaano hawiyow wax irir Samaale la yiraahdo ma jirto waxaad Iidoorna aad wada dhalateenna ma jirto waana idin shidayaa dhagaysta ugaas oo madaxa duuban oo iriri hadday madaarka Hargeysa ka soo degaan
somalilan waxa u khayr dhaantay labada garaad jaamaco madaarka cigaal international waa maqlaysaan waxa uu yiri kun ugaas oo irir Soomaali ah oo madaarka Hargeysa maanta ka soo dega iidoor waxa uga faa'iido badan garaad jaamac garaad cali iyo garaad jaamac garaad ismaaciil oo magaalada Hargeysa yimaada Allahu akbar Allahu akbar taasi waa waxaan suuroobeen waa ala casha sotima ay iska soo baxaan ala casha timo miyaa ka soo baxayaan waa maya marka wiyo waxaan idin leeyahay aqliga iidoor waa midka aqliga iidoor wallahi waa midku idinku raafayay war wali ma aragteen nin daarooda laga masaafurinayo magaalada Hargeysa laakiin boqolaal baan aragnay hawiya oo laga masaafurinayo fariintiisa kale waxa uu diray Muuse Biixi isagoo leh Muusow laba arin isku qabadsi inaad tiraahdo dhulbaanta dagaalka joojiya inaad gabile iyo berbere iyo Hargeysa intaad wareegto shacabka aad ku dhex wareegto aad tiraahdo qarankii la baabi ciidankii baaba qarankiina difaacda oo aad kiciso labada isku qabadsi ila yara dhageysta dagaalka joojiya gobolka awdal iyo gadabuursigana waxa tiri ka qayb gala dagaalka labadaana isqabad leeyahay gobolka awdal iyo gadabuursina waxaad ku tiri Muusow dagaalka ka qayb gala dhulbaantuna waxaad leedahay dagaalka joojiya war waa Muusow warune Muuse dhigaabo bal labada isku kaaya qabadsi labada isku kaaya qabadsi war waxaan idin leeyahay maalmahan kulli waa idinka mashquulay laakiin hadda kadib update-kayga san ahaanaya insha Allah wixii barnaamij ku soo kordhana insha Allah waan wada socon doonaa channelka da subscribe-kii lowday fadlan channelka subscribe dhaho isla markaana gambaleelka u furo waxaan idin leeyahay intaad darxumo ku dhiman lahayd ama gudnimo ku dhiman lahayd geesinimo u dhinta guul iyo gobonnimo SNM gabalgeedii waa u dumay godkii ilkay jirtaa sidaa iyo nabadgelyo